وقف وقف شوي ابني. ايش بك عمو؟ عمو من شوي جا واحد ساهم من عندي واعطاني خمسة مزورة. ورجيني هلا شوف عمو. لا عمو ما فيها شيء، هي ما هي مزورة، بس هي قديمة شوي. خلص راح اخذها انا واعطيك وحدة بدالها جديدة. سيك عمو. بس عمو هي ما هي مثلها، هذيك 5 ليرات هي 100 ليرة. ايش فرقت؟ كله نفس الشيء. عمو هدول الاغراض كلهم شط حقهم، انا بشتريهم منك. عمو هدول كلهم حقهم 25 ليرة. تمام عمو اتفقنا، راح اخذهم. تفضل عمو. لحظة عمو ارجع لك الباقي. لا ترجع شيء. هدول حقهم 100 ليرة، انت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. عمو ليش مالك لابس جواب؟ ليش بوطك مشقوق؟ والله يا عمو ما عندي غيره. يا رضا نعم بابا. تعال عندي، نزل ابني شوي، تعال. نعم بابا. تمام هيك عمو؟ ايه تمام عمو الله يرزقك. عمو وقف شوي. عمو انت مين؟ مين يعني؟ انسان مثلي مثلك. لا عمو انت في جواتك سر. شلون يعني يا ابني؟ ما فهمت عليك. في بقلبك خوف من الله، في بقلبك حنية، في بقلبك إيمان. عمو بتعرف الله شو عم يكفيني انت؟ فرحت قلبي من جوا، يا عمري ما فرحت هيك فرحة ولبست بوط جديد. عمو بس بدي منك طلب صغير. تفضل عمو. أنا شفتك لما حطيت لي هدول مصاري بجيب جاكيت، وأنا ما رح أقول لك ما بدي إياهم وما باخذ شي من حدا، بس هلا هدول مو صاروا إلي وأنت عطيتني إياهم؟ إيه طبعا عمو. بدي أأمن
لهم لأخواتنا اللي قاعدين بالخيام ما عندهم مكان يناموا فيه وعم بيناموا على الواقف بالميات والطوفان. هدول صاروا أمانة برقبتك، تفضل خدهم. فعلا ما بحس بالفقير إلا الفقير. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت أمانتك. عن ربك ما راح يضيع شيء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفرح قلبك وتفرح بابنك مثل ما فرحتني هالفرحة. السلام عليكم عمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا aad iyo aad aan dhammaantiin idin wada jeclahay meel walba adduunka dacaladiisa aad ka wada joogtaan. channelkan naga daawanaysaan waa Shamsa Xasan Xina. kusoo dhawaada idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad videoasheeda aad igu sabot gareysaan. waad ku mahadsantihiin dhammaantiinba. bilis haddaad igu cusub tahay soo dhawow waan ku leenahay. qaybta hoose taabo gaduudka ah subscribe inoo dheh, like iyo share, comment qurux badanna waa idinka sugaynaa insha allahu tacaala. familkaygaa tihiin, faniskaygaa tihiin, idinkaan wax idinku ahay la-aantiin abaar waayaan ku dhaha ma fahanteen yaa. laaga xaggeedana iga soo dhisa asxaabey. laagayga aad iyo aada u liitaa. komitigayga sidoo kaleetod hoose jiraana idin dhahay aaba dadkaygii aan waxa ku ahaa, aaba dadkaygii aan ku taageersanaa aawaya. maadaama aan ka weynay youtuberada waaweyn inay garabna siiyaan aan ka waayay, waxaan idinka codsanayaa shacabkayga Soomaaliyeed inay garab isiiyaan, meel fiican iiga soo baxaan, isoo muujiyaan. ayaga ayaa wax iga dhigi karo, ayaga ayaa iga tegi karo, ayaga ayaa dhulka iga qaadi karo. waxa aan jeclahay wax walbo qurux badan inaan idin soo gudbiyo ama aan idin tuso hordhacna aan aniga u ahay sida arkaysaanbo aan marka hore idin sharaxo idinkaaga faaloodo kadibna aan idin tuso filimka videoga oo dhameystiran. ila soco videoga bilow ilaa dhammaad. please codsi waaye. waad ku mahadsantahay daawashadaada quruxda badan leh. waxaan soo daawaday oon arkay idinkan aad arki doontiin waa wiil yar caraba u dhashay. waa carab maasha allah tabaarakallah. waa wiil aada u da-yar 6 jir ama 5 sano waxaan dhihi karaa kama weyno horta maasha allah. hooyada dhashay ilaahay ha u xafido. waa ilmo yar maasha allah tabaarakallah. xaqiiqatan aad iyo aad aan aniga wallaahi waa la dhacay. xaqiiqdii wax walba horta rabbi yaa bixiyo, rabbi ayaa awoodo. laakiin alxamdulilah ilmahaas yarka ah inuu shakhsi wax ka qaato sida uga diiday yaa. haddaad aragtaan asxaabteeda carabiya ku baxaysaa, carabi ahaan ayuu idiin soo gaarayaa. laakiin hadallada isdhaafsanayaan cunug yarka ah iyo adeerka ninka caawin doono oo camo oo leeyahay camo. odaga caawin doono waa nin dhalinyaro ah ninka caawinayo oo ilmo yar wato. maybe waa aabbo ka damqaday ilmo yar waaye. wado cidla ah qudaar ku gadaaye, hooyadiisu qudaar u gadaaye. wado highway ah oo cidla ah oo wax socda lahayn ayuu qudaar ku gadayaa ilmahaas yarka ah oo qudaar ku iibinaya. alxamdulilah ninkan oo wado socdo ayaa arkayo. gaariga waa lagu wadaa. ninka wuxuu leeyahay jooji, cafwan inta jooji. wuu joojinayaa ilmaha yarka ah, wuu usoo dagayaa, wuu u imaanayaa. ilmaha yar wuu oynayaa. marka wuxuu ku oynayaa 20 gini
inay tahaan jeclaanaya 20 gini lacagta carabta si fiican ani uma aqaana asxaabteeda laakiin carabiga waan garanaya 20 gini ama 30 gini miya ma aqaano inay tahaan u maleynaya 20 meelahaas inay tahay wuu fiirinaya sawiro ka dhex arkaya wuu oynaya marka wuxuu leeyahay ilmaha yarka ah maxaa tahay lacagtan qofka igu qayaana aniga oo waxa iiga iibsaday oo qofka ku dhex sawiran yahay wuu oynaya ninka cunuga oynaya ayuu arka marka wuu ka danqaday maasha allah tabaarakallah subxaanallah muxuu dhahay rabbi muxuu dhahay isku naxariista ana waa idiin naxariisanayay taas oo kaleetood waay ilmaha yar ninka soo ugu danqaday Soomaali haddaan nahay haddaan qof walba sidaasoo kale aan ugu danqan lahayn qof walba oo muslim ah haddii aan sidaa ugu danqan lahayn xaqiiqatan waxaan aaminsanahay yaa wadankeena waxba maba nooga dhaceenba wadankeena waxba maba qabsadeenba waxba naguma dhici lahayn Soomaali qayb maba kala noqon lahaynba haddii sidaasoo kale aan wax iskugu qaban lahayn ama aan iskugu tari lahayn ama aan si niyad saafi ah aan wax iskugu qaban lahayn ama aan iskugu hoggaansanaan lahayn ama aan isku jeclaan lahayn siiba Soomaalida adduunka aan isku necebnahaba ma aqaano waxa kilifay ama keenay qolaba meelay degtay qolaba calan ay yeelatay waxana kala googooyay waa qabiil waxana kala reebay waa qabiil waxa adduunka dib nooga dhigay waa qabiil xaqiiqatan waxa adduunyada dib nooga dhiga waa qabiil waa in aan hore u socono ama garan weyna waan dhihi karaa because haddaan hore u socon lahayn aan hore u dhaqaaqi lahayn keeni waxaysto kan liito jiidi lahaa kan la soo jiiday mid kasii hooseeya ayuu soo jiidi lahaa waxaan aaminsanahay Soomaali maxay hore ugu maamaaday quraansho aruurtay bulac waa jiidaa macnaha wax weyn way jiidaysaa waa ila bulac wuu ka weyn yahay Soomaha quraanshada wuu ka weyn yahay maxaa laga wadaa tusaalaha matal ahaan maxaa laga wadaa bulac way jiidi kartaa hadda ninkan ilmaha yar u danqaday asoo gaari ku socdo kala xiran lagu wado gadaal fadhiya asii ilmihiis yarka ah gadaal fadhiyaan yaa asoo sigaar shidanayo oo wuxuu daaqada ka arkay ilmo yar oo oynayo oo central laamiga ah fadhiyo qudaaro gadaya wuu u yimid amo maxaa kugu dhaco yara amo wuxuu yiri شوف 20 شوفوا يري صور دقلنا صور gudaha uga jiro fiiriyo taagan yahay شوف هذا wuu fiiri markaasuu معلش عمو أنا بدلنا هذا جديدا kuugu badalaa huu yiri lacagtii in ka badan ayuu ugu badalay markaasuu yiri لا عمو ما هو حقه يري حقيقة ما أهنوير إنتان دن إلها إذن كداري يا 6 سنو جرا أما 5 سنو جرا عنقاس يا ما أنت قف إسلامات حولي ساس إسكايجي إلا ناي ما جرا لينا يا والله حقيقة ما بجرا لينا يا لأنه وحا قرناي حولا إسلام إنه إسكي إلالي عنق 5 سنو جرو ولا عنقاس 5 سنو جرا هذا أوبت اللي حو جرا كما بدنبو وانا أركي دونتين يا مكاسو ليهي أديركا يا كسيي قادو عمو مدح أصلاحايا هيو دهايا قدارتانو دانو ليهي ميقا إيغا سينيسا أنا كا غدانايو وطرنايا عنقا يا 4 3 5 6 7 وطرنايا عمو انتاس وايو ليهي adiga $20 ama lacag u dhiganto gini ah meelahaas oo sheegaya intaas waa leeyahay 50 intaas waxsaas oo dhaxaya in ka badan oo hadana siiyo markaas uu leeyahay ama la muu xaqiiga ma ahan macnaha markaas wuxuu leeyahay dhib ma lahan adeerka ayaa ku siiyay adeerkaana mi dhihino adeerka ayaa ku siiyay waad qaadan kartaa hayuu dhahaya وكا قادنا مركو استاج اسدهايو او هوس مركو فيرو وحو اركايا كباها ير ilmaha yar oo wato buudka hore dhanka jeexin fariis ka soo baxeen qabow aana jiro wuu qabanaya wiilkiisu leeyahay tacaal baba nacam baba tacaal
wiilka yarka imaanaya kabahoo ka siibaya sharabaadadoo ka siibaya ilmihii yaraayo sharabaadada u xeraya kabihii u xeraya wuu soo istaajinaya wiilkiisoo jaakada ka siibaya ilaan meelo inta baxo wax oga soo gado oo meeshii inuu hodana oo ugu imaanayo ma ogo ma u maleynayo inuu kusoo gaarayo dharkii ilmihiisi wato waa dhar qurux badan oo cusub oo wataa ilmihiisa dharkii cunugiisi watay oo cunugii kale u geliyay jaakada wiilkiisa ka siiba wiilkii u geliyay wuu farxa marka camo yiri الله سبحانه وتعالى هو يري قلبك دالع أنا يودح فيريا إلهي سبحانه وتعالى قلبك دالع أنا يري إنسانته يري إنسانته يري إله حق اللي عابدان كدارته يري إنسانته يري ما بشوفته يري ما بعرف له يري ما بأركنه يري قف أضاء كلا هو يري أما نحرستان يقولوا دقمه يري سيدا أفرح يودح عمو والله فرحنا هور فرحتنا كتير وير آد أيام أفرحو تاقيا حقيقة المها سيرك والله سو أغد عي ويلكاس نركو أحري يعني سيدو أغد عي ما ملين كرتدا كده حقيقة سيدو أغد عي أو إلهي أغد بري أو حقيقة أو كالهدلة حقيقة أو كالهدلة فرحنا هور لعاوة مركي جابكو بلي جاكد ويلكاس مركو كسيبه كوس العوا جابك جاكد وقلي لا أو يرعمو مركو شاكد كده مستور عمو تن عجبك قلي سمحا وايوده عمو هويري شكرا وكا قبا هويري فرحنا هويري فرحنا كتير أفرحو ده حقيقة أفرحو يري فرحت إيقوين ما بجرتو ده يا وانا ما هدسنتو هويري أنا فرح سنة هويدي آبهي أتاقايا يوتاقايا حقيقتي والله بلا تلاي حادنا هل يكون استاجيسا هدي أدارت فيديو غاس الصحابي waxaa leeyahay videogan haduu idin sii oo idin soo gaaro si share gareeya dad badan oo naga mid ah in ay ku amal qaataan ee ku tusaale qaataan videogan wuxuu u dhigmaa video lagu tusaale qaato laana ilmo yar yar oo saas ah oo dhibaataysan wadamadeena ka buuxaan oo dib loo fiirinayn oo laga kortilaabsanayo oo laga kortilaabsanayo wadamadeena buuxaan xaqiiqada hadii laga hadlayo marka video wuxuu noo noqonayaa dhiirigelin dadkayga aan jeclahay asxaabteyda aan jeclahay please videogan ila daawado bilow ilaa dhammaad codsi waaye la-aantiin ani waxu miihi xaqiiqada idin taabanaya la-aantiin ani waxu miihi idinkaan wax idinku ahay idinkaa wax iga dhigay idinkaa wax idinku ahay la-ano maanta qof youtuber iga sareeyo ama iga weyn 100 qof aan la hadlay ama la xiriiray intaba in wax ii qabatay ama hadalkayga meel ka soo qaada ma lahan laakiin shacabkayga Soomaaliyeed Soomaali weyn shacabkayga Soomaaliyeed aan la hadlayaa idinka ayaa wax qaban karo idinka ayaa qofka wax ka dhigi karo idinka ayaa qofka wax ka soo saari karo xaqiiqdii laakiin haddana idinkaan wax idinka sugaya idinka ayaa idin sugaya idinka ayaa idin taaganahay iyo rabbiga iyo abuurtay waa fahanteen samaha marka waxaan idin leeyahay video haduu idin soo gaaro ila garay share garay comment qurux badan ila qaybso videogaas qof walba ugu amal qaato ama tusaale ay u noqotane noo share gareeya cunug yaro dhibaataysan saada uga tagin qofka kale daawadan oo soo uga tagin oo tusaale u noqdo noo share gareeya waad ku mahadsantiin dhamaantiin waxaan idinkaaga sii tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وقف شوي يا ابني ايش بك عمو؟ عمو من شوي روح الزان عندي وطني 5 مزورة ورجيني هلا شوف عمو لا عمو ما فيها شيء هي ما هي مزورة بس هي قديمة شوي خلص راح اخذها انا واعطيك وحدة بدالها جديدة سيك عمو بس عمو هي ما هي مثله هذيك 5 ليرات هي 100 ليرة ايش فرقت؟ كله نفس الشيء عمو هدول الاغراض كلهم شط حقهم انا بشتريهم منك
عمو هدول كلهم حقهم 25 ليرة. تمام عمو، اتفقنا، راح اخذهم. تفضل عمو. لحظة عمو ارجع لك الباقي. لا ترجع شيء، هدول حقهم 100 ليرة، انت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. عمو ليش مالك لابس جواب؟ ليش بوطك مشقوق؟ والله يا عمو ما عندي غيره. يا رضا، نعم بابا. تعال عندي، نزيل ابني شوي، تعال. نعم بابا. تمام هيك عمو؟ ايه تمام عمو الله يرزقك. عمو وقف شوي. عمو انت مين؟ مين يعني؟ انسان مثلي مثلك. لا عمو انت في جواتك سر. شلون يعني يا ابني؟ ما فهمت عليك. في بقلبك خوف من الله، في بقلبك حنية، في بقلبك إيمان. عمو بتعرف الله شو عم يكفيني انت؟ فرحت قلبي من جوا، يا عمري ما فرحت هيك فرحة ولبست بوط جديد. عمو بس بدي منك طلب صغير. تفضل عمو. أنا شفتك لما حطيت لي هدول مصاري بجيب جاكيت، وأنا ما رح أقول لك ما بدي إياهم وما باخذ شي من حدا، بس هلا هدول مو صاروا إلي وأنت عطيتني إياهم؟ إيه طبعا عمو. بدي أأمنك فيهم أمانة، تبعتهم لأخواتنا اللي قاعدين بالخيام، ما عندهم مكان يناموا فيه، وعم بيناموا على الواقف بالميات والطوفان، هدول صاروا أمانة برقبتك، تفضل خدهم. فعلا ما بحس بالفقير إلا الفقير. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت أمانتك. عن ربك ما راح يضيع شيء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن يعمل مثقال